السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي هو محمد عبد الله وحن كم مقع دير هاي درويشكا. وحن هالكن بالشدة الصومالية كوجي سينيا إن هاي مواد بحث ودلكيسي دتكيسي لقول باتينيو والله باتينيو أركتديسا. وحا إرهاد سنة يو أي بعض سنة يا مدحوين الدني يو عدماء صادري وأمر سوسي إلا يسوحره. صابت الله يسوحره يا الله إرهاد سنة يعني وحوي maxaa dalkaaga u jeceshahay maxaa dadkaaga ugu doodaa maxaa facebookaaga ugu baahaysaa muuqaalo iyo sawirro aad kaga hadlayso danaha dalkaaga hadda muuqaalka ugu dambeeyay oo aan dhawaan soo duubay 12 bisha ayaa la ii daba joogaa oo la doonayaa in la ii xiro waan kaga hadlayay dhacdadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee ra'iisul wasaare Khayre arrinta ku saabsanay oo aanan anigu cidna dambi u geysan dhacdada jirtay iyo wixii khalad ahaa ee jiray aan tilmaamay iyo waxyaabaha la doonayo inaan mataqaanay aan dadkeena iyo dawladdeenu aan samayn runtii waxa jira dad iyana saas oo kale garwo ku xiran kuwa bas ku xiran oo loo xiray arrimo la xiriira dal jacayl iyo dawlad jacayl iyo qaar la xiray arrimo federaalka ah cabrin way runtii aniguna waxaan kamid ahay dadkaas la doonayo in la xiro balse nasi wanaag aan ka soo baxsaday muddo 8 bari ah oo aan dhumaaleys ku jiray oo aan carar ku jiray oo aan waxa weey meesha aan joogay aan la ogeyn ayaan ku jiray runtii garwanka waa ka soo baxay marka caga jugleen iyo telefoon la isoo diro iyo goobihii shaqada la iga raadiyay aan ka shaqeyn jiray oo la iga raadinayay iyo waxa weeye sidoo kale goobihii aan deganaan jiray oo la iga raadinayay intaas markii inta iga waayeen ba waxay caga jugleen igu soo bilaabeen inay ii soo hanjabaan familkayga dadkayga waxaan iyagoo uga digayo ninkan naga qabsada waxa weeye waxa kaliya ay ujeedkoodu waxa weeye in la aamusiyo oo la yiraahdo dalkayga dadkaaga maxaad ugu hadlaysaa maxaad ugu doodaysaa maxaad waxa weeye u sameynaysaa waxyaabo mataqaanayay danaha dalkaaga ah adigu calay kul xaal arrintaas waa taagan tahay baxs noocaas baan ku jira dhalinyaradii Soomaaliyeed waxay isugu jiraan wax hurdo oo seexday intii hadlaysana saasa loo ceyrsanaya runtii waa nasiib darro weyn weeye arrintaasi aniga sanad ka hor sanadkan aad uma gaadho xukuumadda gaas bishii sagaalaad bay xidhay sababta la xidhan waxay ahayd hal warqad oo aan ku soo qoray aragtida anoo fikriga ku cabiriyay oo ay ku qoran tahay dalku hal madaxweyne leeyahay waxa dhigi karta badankiinu inaad xasuustaan runtii shacab Soomaaliyeed oo badan baa ka gilgishay xarigaygaas maalinta la xidhay rag badan baa ii kacay waa la iga soo daayay nimankaas waxa la isku dayay ujeedka laga lahaa waxay in la aamusiyo balse nin dalkiisa dadkiisa dhibaataysan yahay waxa weeye haddana miyuu kama aamusi karo qofkii damiir iyo dareen kama aamusi karo waa tahay qaybta dambe ee muuqaalka haddaba waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo cod aan ka duubay ciidamada amniga ee Puntland codkaasi wuxuu ku soo aaday xilli ay igu waayeen oo ay goobteedii shaqada aan tagi jiray ay iga waayeen dabcan waxaa xusid mudan qaybta goobta shaqadu waxay ahayd goobtii maalintii hore ee xukuumadda gaas soo qabanaysay sanadkii hore dhamaadkiisii ay iga soo qabatay bay ahayd oo dabcan meel aan ka shaqeeyo lagu yaqaan bay ahayd waa goobta iga raadiyeen oo iga soo waayeen ayay gadana guriga tageen iga soo waayeen markaas ka bacdi waxay bilaabeen waxay isiraadeen ninkii waa baxay ama waa tagay markaas darteed bay qorta call ii soo direen marka callkii waxay nagu dhex maray halka ka daawada hello waa codkayga go'aya haya waa maxaad baa lagu dhahaa wuxuu ku tirsan yahay saraakiisha amniga ninka tirsan weeye ya saraakiisha amniga gobolka waa ninka tirsan weeye ma garatay waa gartay sababta nin dhalinyaraayo odayaa tahay ma garatay haya waan lagu soo eedeeyey haya waxyaalaha hadda jirtaan facebookada kusoo qoraysa waxaan ka waa baanliyay wax hadda lagu soo eedeeyey khaad kale ma garatay maxaa laigu soo eedeeyey walaale waxyaalaha facebook ayaa kusoo qoraysid ma garatay waxyaabahan facebook ay kusoo qoray ma garatay haye ragga kuwa midka ah waxay xiran yihiin sheeladii ku jiraan waa nin odayaa tahay nin meel ka shaqeeyaa tahay annaga waa ku garanaynaa hadda waxaan wacay ninka wata toban kuwar 22 meesha ka shaqeysa maamulaha ka ah waa isagaa lambarkaa soo siiyey waa marka inaad waa kuu digaynaa waxaan kaaga digaynaa waxyaalaha khaladaadkaa soo qorsa inaad iska daysa nin dhalinyara baatay digniin baan ku digaynaa niyahow anigu isuma arko qof qalad galay wax qaladana qoray isuma arko waxaan dalkayga dadkayga ugu shaqeynayo maan soo qoraa
de qofku haddii uu loo digayana oo dembi u galay dee dembiga qofka la yidhahdo dembigaasaad gashay ama waxaas dembi buu yahay waxa weeye dembigaa gashay baan kuu sheegaya haye siyaasadda dawladdu baa puntland baad ka hortimi kow maxaan labaad siyaasadda dawladda puntland baa ka hortimi haye kan labaad madaxweyneyaal baa cayday aflagaadeysay dad iyo mas-uuliyiin haye aniguna gobolka amniga ninkii u joogay baan ahay ma garat haye maxaa janaxa la dhahaa waa gar aniga hadda liiska waa ku jirta nimanka layidhi halasoo qabto laakiin waxaan ku ninkaas maadaama wax qoray waxa bigdhiila maahan ukaadi waa udegaynaa baan nidhi ma garat waa gar marka niyow waxaan kaa codsanaynaa waan kaaga digaynaa arrintaa waxyaalaha kor u siida waqti xasaasiya lagu jira adigana dadka hadda ishu qabatay bay ku jirtaa inaad waxaad ka dheysa nin dhalinyaraha baa tahay haddar xabsi iyo hawl iyo kama bixi kartid nin kula mid aan ahay waa dareemi karaa maogta waxaad kartid nin dareemi karaan ahay si dhalinyarnimaa baan kula hadlay waa ku nastaaxaylaya maogta horta haddaad nastaxo wado saaxiib aad baan kugu mahadcelinaya laakiinse anigu niyo nin wax khalada galay isuma arko wax khalada inaan ku qaladka ay gashay baan ku sheegaya last bostiga fadani iyo farol ku maagaysid maaha boostaa soo dhigay oo ku maagay ya niyo wacyi jira iyo wixii jira oo waddanka ka jira in laga hadlo lascaburiyana maaha qofkuna wuxuu xaq u leeyahay wixii aragtidiisa inuu cabiro ma garatay dhegeyso ha hadda marka waa isla saxantaa miya waaw ni anigu nin dalkiisa u shaqeynaya dadkiisa u shaqeynaya baan ahay waxa weeye wax qaladana nin galay isuma arko ma garatay waxa weeye haddaan nin dhalinyaronimo saa iisoo wacdana saaxib aad baan kugu mahadcelinaya waa la isku leeyahay tilmaanta iyo hoga tusaaleyntaba waa gar marka ma ballan qaadaysaa inaadan booskaaga iyo kusoo qorin bejkaaga wax damo gafa ama gafa ku ah puntland ama ku ah ama mas-uuliyiintada ku ah maya anigu sideedaba gaf maba qoraba anigu puntland waa puntland anaa u dhashay reer puntland baan ahay cidna uguma gafo waxa weeye wacyiga jira farolaya denisa nimanka ugafisay maaha ya farolaya denisa nimanka ugafisay maaha oo farolaya deni maxaan idhi anigu qoraalkaaga dib waag miyaan telefkaa ka warqayn maya anigu farolaya denisan wax kama sheegin iyo ani how waxaan kaa codsanayna anigu hadda ku nastaxeeya waana kaaga diga arrintaas soo hubi waxa inaysan mar damba soo laaban baan rabaa hadda waxa weeye waxaan ta kuu soo wacay haddaba waad ujeedaa baan umalanaya inaad ka bogateen dabcan codka inaad dhegeysateen codkaasi laba ujeedu yeelan karaa kow horta marka ugu horeysa in la isku dayay in la aaminsiiyo oo dhammaan wax alaala wixii aan barnaamijyo aan uga hadli jiray dalka iyo dadka Soomaaliyeed kala qoqobnaanta dhibaatooyinka federaalka dalka u keenay waxyaabahaas dhan kaga hadli jiray in la isku dayo qorta in la aaminsiiyo oo halka lagu hakad lagu geliyo tan labaad inaan is dhigto hadii lacala aan gudaha joogo magaalada inaan is dhigto oo aan is raahdo malaha waa lagu cafiyay maadaama hadalkooda ay ku soo dareen waa adigu waa ka dinay xarigii laakiin waxaan rabaa barnaamijka joojiso marka sida caadiga waxaan idin xuseeyaa oo idin sheegaya nimankan cidna ma dignin ma siiyaan ragga hadda xiriirna dignin lama siin ma garatay cid dignin la siiyana ma jirto goorta qofka ka qoostaan bay markaa catowga telefoonka diraan waxa xusid mudan dhammaan familkayga iyo dadka qoyskayga dad madax soo noqday ama xilal hayn jiray ama familkayga ay la hadleen oo la xiriireen iyagoo isaga dhigaya sidii inay ninka iska keedeynayaan ay laakiinse doonayaan mataqaanaa inaan joojiyo barnaamijyadeeda waxa xusid mudan marnaba inaan suuragelin noqon karin inta aan nool lahay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay dhibka noocan xilligan ay ku jiraan run ahaantii damiirkaygu nama siinayo inaanu ka aamusno dhibaatooyin dalkayga ka dhacaya khaladaad madaxdaydu geysanayso xaq waxaan u leenahay muwaadiniin baan nahay inaan aragtidayda ka dhiibano u dheerana waxaasi madaxweyne ma saxna waxaasi ra-iisul wasaare ma saxna waxaasi xukuumaday waxaasi ma saxna inaan dheer odhan karno balse waxaa wax laga xumaado runtii ah in mataqaanaa goortii aad isku daydo madaxdaada inaad wax u sheegto ama khaladkooda aad fahansiiso ay ku cabrinayaan ku cagajugleynayaan isku dayay inay ku aamusiyaan markaas Soomaaliya dhan waxaan ugu baaqayaa inay dalkoodii ilaashadaan inay dalkooda wixii dhibaato u keenaya ka hadlaan ugu yaraan haddii ka hadli karaan haddii ay wax ka qabaan gacanka wax kaga qaban karaan ay gacan wax kaga qabtaan aad baan idin salaamaya dhammaantiin maca salaama